ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa xilliga habeenkii bandow ku soo roga xaafadda Buundaweyn ee magaalada Beledweyne kadib markii kooxo hubeysan ay xaafadda ku dilaan askar ka tirsan ciidanka dowladda iyo dad shacab ah. gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Cusmaan Cabdi Qalaaf ayaa sheegay in aysan jirin wax bandow oo lagu soo rogay xaafadda Buundaweyn balse ciidamada jooga xaafadda loo geeyay inay sugaan amniga kadib markii ay ka dhaceen falal amaanka liddi ku ah. annaga raalli kama noqonayno mana amrayno waxa dadka shacabka dhibo isbaarana u dhigto isu socodka bulshada qeybaheeda kala duwan ama magaalada ka danaysanayso in la caqabadeeyo mas'uuliyiinta ciidamadana kamid ma aha in ay amreen annagana raalli kama nihin haddii ay jirto xaafad kamid ay caqabada gaar ay hayaan ay ciidamada militariga ay ku hayaan ha ka keenaan rabood ma soo gaarsiiyaan maamulka iyo taliska muxuu ahaay ciidamada magaalada inta badan waxaa ka howlgala ciidamada militariga ee guutada tobanaad ee gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa degmada Beledweyne iyo ciidamada booliiska dhammaan hay'adaha ammaanka waxaan leenahay marka hore waxaa la sugaa ammaanka magaalada ayagoo ay jiraan tuugada yaryarka ah oo xaafadaha dhibaysa iyo muxuu ahay maamulka iyo ciidamada iyo ka dhex shaqeynaysa tuugada iska dhigayso shabaab iyo kuwa hubeysan oo amniga qalqalka gelinayo aan ka tirsaneyn ciidamada amniga intaas ba ayagoo macnaha laga duulayo ayaa waxa la sameeyaa roondooyin la diraa oo magaalada gaaf wareego waxyaabaha wax u dhimaya amniga oo maqalqal gelinayo ciidamo loo diro waa jiraan Buundaweyn kalax ma aha haddii ay Buundaweyn inta badan ay culays noqotay in ciidamo oo militariga uu leeyahay ay culays ku hayaan waxaan isleenahay waa wax amniga lagu raad goobayo waxyaabaha dhibaya dhowr mar iyo meelaha shir ka dhaceen soonaha Buundaweyn agagaarkeeda ismalihin annaga ciidamada militariga ayaa isbaarooyin ka dhigto gudaha magaalada dhexdeeda ama buudooyinka ama caqabad dadka Soomaaliyeed ku hayo balse waxaan leenahay waxyaabo oo dhibayo dadka ayay raadiyaan xilliyada in wax raadiyaan laga yaabo ayaa waxa laga yaabaa in dadka ay caqabado ama istaaga ay galaan marka waxaan leenahay waxyaabaha dadka dhiba ayay waxay qabtaan ciidamada amniga ee Soomaaliyeed marka waxaad leedahay ma jiraan bandow la saar xaafadda annaga ka maamul ahaan ma ogin wax oo si gaar ah loo target garay xaafadda Buundaweyn Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga ee bulsho Beledweyne.